الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا waxaynu ku soo jiray tafsiirkeena qur-aanka kariimka ah waxaynu si gaar ahaaneed aynu ugu jiray bilowga waxaana soo gaaray suuratulfalaq ayaynu soo gaaray suuratulfalaq waa suurad madani ah waxayna ka kooban tahay 5 aayaad 5 aayadood bay ka kooban tahay 5 aayadood bay ka kooban tahay waana suuraddii kale aynu lahayn mucawadateynka labada uu nebigu magan geli jiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi mucawadaad ayaa la yidhaahdaa markii qulqulo lagu daro markuu nebigu seexdana waa akrin jiray waa ku xirsi xidhan jiray waana soo cadaynay nebiga markii la sexray salawaatullaahi wasalaamu calayhim ninka yuhuudiga labiid ibn acsam uu sexray in labadaas suuradood birabilfalaq iyo birabinaas lagu soo dejiyey oo uu magan galay allana uu shaafiyey ka gadaala sunno la inooga dhigay habeenkii markaynu seexanayno inaynu birabilfalaq iyo birabinaas min 3 koor iyo weliba qulwo la akrino madaxa iyo meeshan jidhkeenna ka gaadhna iska marino waa la magan galayo nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi markay labadaas suuradood ee magangalkaas soo degeen waxaa la leeyahay waxyaalihii kale magan geli jiray iyaga ayuu ka hormariyey nas'al allaha alcafwa alcaafiya alla tacaala wuxuu yihi qul waxaa tiri nabi laahi maxamedow acuudu waxaan magan galayaa altaji-u wa atacawad waxaan magan galayaa birabbi lfalaq falaqu macnaheeda waxaa laga wadaa waaga berigiisa waagaa berya allihii iska lahaa ayaan balaayo oo dhan iyo musiibo oo dhan ayaan ka magan galayaa waxaad tidhaahdaa bale nebi laahi maxamedow acuudu waxaan magan geli birabbi lfalaq waagan berigiisa rabbigii iska lahaa oo waa berigan iska lahaa ee isagu waaga berisiiyey qaarkood waxay leeyihin falaq waxaa leeyahay wax allaala wixii dhambalme ee soo baxay dhulka ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa waa culimadu qaar say ku fasileen qaarna waxay leeyihiin waa waaga berigiisa faaliqu lisbaaxi suurat lancaam marka labada macno waa la yidhi laakiin aynu iskaga daysana subaxda waagaa baryey allihii rabbiga u ahaa ayaan magan gelayaa min shari maa sharkiisaan ka magan gelayaa khalaqa uu abuuray ilan wuxuu maanta u abuuray waxaana shar bay leeyihin waxaana khayr bay leeyihin inta shar kale waa jinnina wuu noqdaa insina wuu noqdaa shaydaan maryoola jiro insi ah shayaadiin linsi waljini yuxii bacduhu ilaa bacdi zukruf alqowl oo ku duufsan oo sharciga kaa leexin oo dariiqa wanaagsan kaa leexin oo ahlulmacaasi walfujuur la dhaho shayaadiintan isqariseen la arag ee khafiga ee dhegta wax kuu saaraysaa jirta ee dadka lagu salado shaydaanku uu kow ka yahay ciyaada billaahi min dalika ee alla yidhi ina shaydaana caduwun faاtakiduuhu caduwa cadowgu shaydaanku idhi cadow ka samaysta oo macnaha cadowga laga samaysana macnaheed waa ilahay inaad xusto markaad xusto wuu isqarinayaa markaad yar halmaantooda kugu dhacda kaflana wuu kuu soo noqon uu kaa faa'idaysanayaa idan waxaan ka magan gelayaa alle min shari maa sharkiisa maaga oo khalaqa uu abuuray wa min shari gaasiqin mid dhacay sharkiisaan kaa magan gelayaa idaa waqaba macnaha culimada qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa marka qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka ay dhacaan iyo qaar ku fasileen gaasiq anigu waxaa weeye qorax dayaxii ayaa qarsoomay oo khasbiga ku dhacay markaasuu wadoobaaday waqabana waxaa weeye amaakinta loogu takalay waqaba waxaa laga macnaya sideedaba dakhala waqaba ay dakhala min addukuul marka waxa weeye khasfigaas oo qorax madoobaadka ana wuu noqdaa gaasiqu habeenku markuu soo qaabilana waa la yidhaahdaa idaa adlama wa aqbala habeenku markuu madoobaado ilan habeenku markuu madoobaado halaq oo dhan iyo bahal oo dhan iyo tuug oo dhan iyo dhul socod oo dhan iyo midka shar wada ee gagabanaya habeenkiiba shaqaystaan xamaashaan idan wax habeenkaa wuxuu xambaarsan yahay uu la yimid baa ilahay ka magan galaysaa mashaakila suuradu suurad caadiya ma aha waa birabilfalaq iyo birabinaase
waxaad tidhaahdaa bacda bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhahdaa nabiy llaahi maxamedow acuudu waxaan magan geli birabbi اlfalaqi waagan baryey rabbigii iska lahaa waan rabbigii iska lahaa ayaan magan gelayaa min shari maa sharkiisaan ka magan gelayaa maaga oo khalaqa oo alla abuuray ilan waxaan isaga abuuray allihii abuuray shaygan waxaa weeyaan ayaad sharkiisa ilaahayow adaan kaa magan galay odhanaysaa no u doon ha noqdo ama insaad ama jinni ha noqdo wa min shari gaasiqin habeen sharkii baan kaa magan gelayaa madoobaaday habeenaan ku daysano idaa waqaba idaa dakala habeenku markuu galo xayawaan oo dhan iyo dhursocod oo dhan iyo hawaam oo dhan ay soo baxaan iyo tuug iyo dhuljiif ay banaan wixii oo dhan baan kaa magan gelayaa wa min shari gaasiqin waxaan kaa magan gelayaa habeenka sharkiisa idaa adlama wa aqbala markuu madoobaada soo qaabilo soo ma hartid idaa waqaba ay dakala amaakintiisii uu galo oo dee madow ay noqoto wey waqabkii waxa weeye waa dakala fil maxay madowgiisii iyo qaybuudadiisii buu galay ama mugdigiisii uu soo qaabiliyey idan taas ayaan allow kaa magan gelayaa waxaan sidoo kale allow kaa magan gelayaa wa min shari nafaataati fi lcuqadi guntimaha kuwa wax ku afuufa oo sixroolayaasha aan ilahu kaa magan gelayaa inta badan waxay yidhahdaan dadka sixroolayaasha ah waxaa u badan haween inta badanna sixirka suuf baa wax lagu dhahay waxbaa lagu afuufaa man caqada huma nafasa faqad saxra xadiis waa qofkii intuu wax gunto dhaho wax afuufa ninkan waxbuu sixray marka waa inaad iska jirto waxyaala haddi qofku yidhahdo maxbaan kuugu gunti oon kugu wahayn bal is ilaali waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso wadaad laakiin arrimihiisu ay khatar yihiin oo sixir kaleba kuu wado wey asawaa'ir laati waxa weeye haweenka yanfuthna a ku afuufaya fi lcuqadi alkhayt timaha yaryar bay wax ku afuufayaan oo wax ku sixrayaan waxay yidhaahdaan huna banaatu labiid ibn asam gabdhihiisa sixroolayaal baan bay leeyihin labiid ibn asam waa ninka nabiga sixray sala allahu alayh wasalam ka soo waranay idan hadday xataa kusoo degta waa caamo islaan kastoo saaxirad ah iyo nin kastoo saaxiray soo hosgeli qur-aankuna dee wuu ka waramay dhibaatada uu sixirku leeyahay watabacuu maa tadlu shayaadiin calaa milki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan waktigii cahdigii sulaymaan shayaadiintu waxay akrin jireen sixira ayay gaaladu u tiirinayaan nabiyullaahi sulaymaan isaguna intuu bartay kuma kufrin mana yaqaanin sixir shaqana kuma leh ee shayaadiinta laga bartay reer yahuudeed baana sixirka laga bartay idan dad allaala sixiroolaha xukunkiisuna waa in seef lagu dilo waktigii waxay dhacday cumar bin khadaab jundub ayay dhacday waktigiisii xafsa bintu cumar bay dhacday marka waxaa weeya ninku nin saalaan ma aha magaaladana aada buuba ugu jiraayo waasaa u dhex yaacaano maroori iyo madhoogo iyo meelaha loo raadsadaa ganacsigaasi waxaasaa laysku xastaa laysku sixraa islaantuna iyadoo ka baqanaysa in naag lala guursado ayay ninka wax u laalaabtaa aad ba arrimo u jiraan laakiin waa arrin diin la-aana oo gaalnimo keenaysa in layska ilaaliyo arrinta oo layska jirana waa arrin muhiim ah ilaahayna waa laga magangalaayo suuradaha ayaa lagu dadaalaa subaxdii salaada markii laga baxana saddex buu nabigu akrin jiray maqribka marka laga baxana saddex waa birabilfalaq walwalla iyo birabinaas markuu seexanayana dee saddexdaas ismarin jiray idan waa wiqaaya waa xirsixidh haddana waa qur'aanulkariim oo nicmadoodu ma yaraan wa min shari nafaataat kuwa wax afuufa sharkoodan kaa magan galayaa allow fi lcuqadi guntimaha wax ku afuufee sixroolayaasha wa min shari xaasidin mid xasada sharkiisana allow kaa magan galayaa waa goorma idaa xasada xaasidnimo hadduu la yimaado yuhuud baa xaasidnimada u badanoo am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih faqad aataynaa aala ibraahima alkitaaba alxukma wa aataynaaha mulkan cadiima waxaa lagu yaqaanaa yuhuud sixirka wa min shar laakiin keligood me nin alaa ninka sixirka iyo dariiqooda mara waa caam ayaa soo hosgalaya wa min shari xaasidin mid waxasta sharkiisa ayaan allow kaa magan galayaa dheh idaa inaguna waa dhahaya nabiguna waa dhahaya idaa waqtiga xasada ay xaawala wasanaca sixirkii uu sameeyo oo ficilkii ula yimaado yaan allow kaa magan galayaa suuradda iyada ah waxaan iyadana ku daraynaa suuratu ikhlaas oo iyadana aada iyo aada u yar suuratu ikhlaas waa suuro maki ah
ikhlaas baa lagu magacaabay waana suuro aada iyo aada u fadli badan oo mararka qaarka waxaa soo aroortay 10 ninkii ka akhriya jannada inuu ku gelayo bacdu riwaayaat soo arooray waxaa sidoo kale soo arooray suuradan iyada ah 3 goor ninkuu dhameeya inuu qur-aanka inuu dhameeyey oo halkeeda la akhriyo thuluthul qur'aan ay u dhiganto 3 goor haddaad akhrisan qur-aanka oo dhan oo dhamaysa bay lamid tahay ikhlaaskay ka hadlaysa sabab nasuulkeeduna yuhuudda waxay yidhaahdeen rabbiga ama macdan buu ka samaysay amase dheeman sif lanaa rabbigaa noo sifee noono nisbeeyo meesha aanu ka raadinahayn iyo suu tilmaantiisii iyo bal noo sheeg suuraddana kusoo degto war waxaa la yidhi sidaa dhaha oo sidaa dhaha oo sidaa dhaha marka waxaa weeya waa wax macruufa oo tawxiidka ayay ku sifaysan tahay iyo wanaagga loogu talagalay bismi illaahi magaca ilaahay baan abda ku bilaa haadihi suura arraxmaani allaha naxariista guud naxariista arraxmaani allaha naxariista khaaska ah muuminiinta ku gaar yeela marka suuraddanu aayaadkeedu waxay ka kooban tahay 4 aayadood waxaa lagu yidhi nabiyullaahi maxamed qul waxaad tidhaahdaa haddaad rabtaan sifada alle huwa alle allaahu alla wey waa alle waa ismu daat allaahu alla wey axadun waa keligii wax male saaxib male walad male rufaqa waa keligii waxdahu umana baahnaba qul waxaad tidhahdaa nabiyullaahi maxamedow huwa alle allaahu alla wey axadun waa keligii allaahu alla assamadu aladii laa jawfa lahu baa la dhahaa laakiin samadka waxaa la yidhaahdaa midka la cuskado wey oo wax kale xawaa'ijta iyo danaha iyo umuurahaaga o dhan baad isaga u tiirini assamad saas way macnaheedu asayid aladii qad intahi su'datuhu sayidnimadiisa meeshii u dambeysay ay gaadhay oo xawaa'ijta iyo umuuraha oo dhan loo celiyaa la dhaha sayidka umuur oo dhan isagaad u celinaysaa waxa weeye waa sayid waxa weeye jamiicu lxawaa'ij umuur oo dhan baa loola qastaa asayid almaqsuud fi lxawaa'ij danaha ayaa loola qastaa huwa almaqsuudu ilayhi fi raqaa'ibi almustakiisaat wax allaala wixii gargaar raba isaga aadaan wixii masaa'ib ka cabsanayana isaga aada isagaa la cuskadaa wey assamad huwa aladii yuctamadu wa yuqsadu oo loola qasto bilxawaa'ij danaha isagaasaa fuliya isagaasaa ku filan meel kale oo la aadiya ma ahy leh allaahu alla assamadu allaha la cuskado ee la ictimaado wey allaha la ictimaado wey lam yelid alla ma dhalin awlaad walam yuulad lamana dhalin umana baahna dhalme uma baahna carruur uma baahna islaan uma baahna haniyun ama siwaah uma baahna waa suuradun caadi ma aha walam yakun lahu uma sugnaanin kufuwan axad wax isaga u dhigmana ma uu jiro waxa u dhigma ma uu jiro laysa ka midlihi shay-un huwa samiicu lbasiir waxa weeye wax u dhigma oo alle macnaha u dhigma ma uu jiro laakiin haddee nimankii mushrikulcaraba waxay dhaheen almalaa'ikatu banaatullaahi bay dhaheen yuudna waxay dhaheen cusayr ibnullah bay dhaheen nasaarana waxay dhaheen almasiix ibnullah faakdabahum ullahu ilaahay baa macnaha waxba waa beeniyeyo daatadiisii inuusan u baahnayn walad mithl inuusan u baahnayn ba alle maalintaas suuraddaas iyo suurado kaleba alle uu ku caddeeyey laysa ka midli shay-un wa huwa alsamiicu albasiir lam yelid alla ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun lahu uma sugnaanin kufuwan ay mithlan wax u dhigma uma sugnaanin alle uma sugnaanin ee waxaad ku sheegaysaanna waa wax ka jira ma ay leh waa been wax u dhigma wax kufu ah wax lid ah wax nid ah wax maxa weeye laysa ka midli shay-un wahuwa samiicu lcaliim idan halkaasaynu ku joojinayna nas'al allah alcadiima aljaliila yadkurkum wain shi'tum وصلى الله على نبي الكريم وشكرا لكم على حسن